heshiis rasmi ah oo ay kala saxiixdeen maamulka ahlu sunna iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaana heshiiskaasi goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. heshiiska ka kooban 14 qodob ayaa dhigay in kooxda ahlu sunna ay ku biirto dowlad goboleedka galmudug. xasan cadde ayaa goobjoog ka ah warbixintan inooga soo diray. heshiiskan oo ay ka qayb galeen dhammaan madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya maamul goboleedyada iyo xubnaha ka socday international community ama beesha caalamka ayaa wuxuu ahaa munaasabad markaasi warmurtiyeed looga soo saaray iyadoo goobta ay ku saxiixeen madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug iyo waliba Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo asaguna ahaa madaxii ahlu sunna wal jamaa. khudbado kala duwan ee halkaas laga jeediyay ayaa waxa halkaas ka hadlay maamul goboleedyada madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland oo sheegay in arintan ay si gaar ah u khusayso maadaama ay daris la yihiin galmudug. intii guul Soomaaliyeed qayb way ka qaadanaysa geedi socodka nabadda Soomaaliyeed dib u soo celinaysa qaybna ka dib u soo celinta sharaftii karaamadii iyo dowladnimada Soomaaliya aad iyo aad ugu mahadsan yihiin inay maanta labada qodob ku saxiixdeen halkan heshiis ay ka muuqato isu tanaasul iyo garasho runtii dheer ay ka muuqato. waan ku bogaadinayaa madaxweynaha galmudug qaybta uu ka qaatay hawshan iyo fududaynta. waxa kale oo goobtaasi ka hadlay Michael Keaton oo sheegay in arintan ay tahay mid guul ah isla markaana ay aad u soo dhaweynayaan. This is a great agreement. There's a lot of work still to be done, but I am looking forward to having a similar ceremony. shirka oo ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka waxgaradka dhalinyarada qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan galmudug ayaa waxa hadalkii qaatay Sheekh Shaakir Cali Xasan oo asagu noqon doona madaxa xukuumadda dawlad goboleedka galmudug waxaana uu soo dhaweeyay isla markaana uu sheegay in ay guul u tahay in munaasabadan ay dhacdo. wuxuu ka codsaday beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliya in arintani ay gacan ka geystaan isla markaana aan kaligood looga tagin. heshiiska halkan ka dhacay waxaan dawladda federaalka ugu baaqaya beesha caalamka ugu baaqaya inay taabageliyaan inay garab istaagaan gobollada dhexe wixii ay ka hakradeen oo kala maqnaanta ay kala maqnaayeen uga hakradeen maanta u fadhiya. madaxweyne xaaf oo arintaasi ka hadlay ayaa sheegay in uu awoodiisa ka tanasulay una ku faraxsan yahay. dad badan waxay leeyihiin su'aalaya ninkaan awoodiisii uu qaybiyo waa run awoodda la qaybiyo kaliya waa taydi la awoodi madaxweyne ku xigay loo qaybiyo wala si kale awood sala qaybiyo bilis qof awood sala taabtay ma jiro waan aniga anaa taydi. intaasi dabadeed ayaa waxa isaguna hadlay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo si wanaagsan isaguna u soo dhaweeyay munaasabadan heshiiska lagu kala saxiixanayay. dawladda federaalku waxay ballan qaadaysaa inaan isku dayi doono wax walba oo awoodno si loo dhamaystiro heshiiskan bilowday oo muhiimka ah. maanta waxaan u baaqayaa shacabka reer galmudug meel walba ay joogaan mas'uuliyiin iyo shacab. heshiiskani waa muhiim, heshiiskani waa bilow, waa fursad aad u weyn ay u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed. qof walba oo reer galmudug iyo qof walba oo Soomaaliyeed madaxdan isxilqaantay Sheekh Shaakir Xaaf iyo dhammaan inta kale dawladda federaalka waa inaan garab istaagnaa si aan u dhamaystirnaa inta dhiman. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in heshiiskani uu runtii muhiimad gaar ah u leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya maadaama dawladdu ay dhisan tahay wax sanad ka yar isla markaana ay guul ka gaartay in heshiis maanta ay kala saxiixdaan laba dhinac oo muddo dheer iska soo horjeeday. isaga kali weynka wax bixiyay inkastoo iyagu naftigooda ahlu sunna ay nidaam wanaagsan ay haysteen oo u shaqeynayay
laakiin ninka awoodiisa qeybiyo waa isaga ee maaha madaxweyne ku-xigeenka ma aha baarlamaanka ma aha marka saas in la ogaada loo baahan yahay. si kastaba ha ahaatee munaasabadan ayaa waxaa ka dambeeya munaasabado kale oo ka dhici doona magaalada Dhuusamareeb oo noqon doonta xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Xasan Sheekh Axmed Cadde, Somali Cable, xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho.